dalada ay ku midaysan yihiin ururada maxalliga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Nafis Network ayaa maanta wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada ee gobolka Saaxil ku wareejiyay gaari muddo 20 cisho ka shaqeyn doona wacyigelinta xanuunka COVID-19 iyo ka hortagga gudniinka fircooniga. ugu horeyn waxa faahfaahin ka bixiyay madaxa mashaariicda dalada Nafis Network Hiba Maxamuud Cabdi. Bismillahirrahmanirrahiim. maanta waxaan joognaa wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada ee gobolka Saaxil magaalada Berbera. maxay waxa aanu ku soconay wafdi ka socda hay'adda Nafis Network xafiiskeeda Hargeysa. ujeedada aanu halkan u joogno maanta waxa weeyaan in aanu ku wareejino gaari wacyigelinta gobolka Saaxil ka shaqeynaya inaan ku wareejino wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada. maxay ujeedka markaa guud wuxuu bay qayb ka tahay dadaalada loogu jiro sidii aynu wada badbaadin lahayn oo meel uga soo wada jeedsan lahayn badbaadada bulshadeena khaasatan hablaha yaryar oo aynu ka badbaadino ka wacyigelino bulshada in hooyooyinka iyo aabayaasha iyo waalidiinta iyo dhamaanba cid kasta oo gacan ku leh in ay ka joojiyaan si ay ugu joojin lahaayeen gudniinka hablaha yaryar. aad iyo aad baan markaa u mahadsantihiin, aad baan ugu mahadnaqaynaa sida fiican ee dhow ay nolol shaqeyso wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada. isuduwaha wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada ee gobolka Saaxil Ibrahim Salebaan Caateye ayaa ka gudoomiyay gaarigaasi hay'adda Nafis Network isagoo halkaas uga mahadnaqay hay'adaha wadaniga ee wada shaqeynta leeyahay. Ilaahay baan mahadle. marka labaad waxaan u mahadcelinaynaa cid kasta oo nagala qayb qaadata shaqada aan u hayno bulshada. ama wacyigelinta ha noqoto ama taakulaynta ha noqoto ay dhan kasta oo la iska taagaba noqotay shaqada ay wasaaraddu hayso bulshadeeda. cid kasta oo isla kaya garabka taagta ayaan marka labaadna u mahadnaqaynaa. maanta halkan waxaanu mahadnaq iyo soo dhaweyn uga jeedinaynaa hay'adda Nafis Network oo runtii arrimaha bulshada gaar ahaan qaybta arrimaha haweenka si xoog leh uga shaqeysa wasaaradda heer gobol iyo heer qaranba. maantana halkan loogu keentay gaari Langaruusal ah oo muddo 20 cisho ah uga ka shaqeyn doona gobolka oo ka sameyn doona wacyigelinta ka qayb qaadan doona wacyigelinta xanuunkan safmarka ah iyo arrimihii bulshada ee awalba ka shaqeyn jirtay oo wada jir ah. marka aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waana ka gudoonay waana ku shaqeyn doonaa muddada 20 cisho ah ee ay ugu talagaleen inay wacyigelinta ka qayb qaataan gaadiidkaas iyo qalabkiisa. aad iyo aad baa mahadsantihiin waana idinka gudoonay waana ku shaqeyn doonaa guud ahaan gobolka Saaxilna wax weyn buu tari doonaa gaariga iyo qalabkiisu. وخضر محمود أحمد خضر حيفو تلفزيون كقرة كجمهورية سومالنا مقال حبيت بربرة.